Doodaha ugu badan ee dunida waxay dhex maraan ragga iyo dumarka isqaba. Soomaalidu waxay tiraahdaa raggu waxay neceb yihiin haweenka qaarkood oo saddex astaamood leh, waxaana tan koowaad ay tahay midda muranka badan. Waxaa soo labeeya midda areebada ah ee aan kala hagaajin waxyaabaha guriga dhex yaalla. Waxaana tan saddexaad ee ay raggu neceb yihiin lagu sheegaa inay tahay midda aan qari karin sirta dhex marta iyada iyo saygeeda, oo waxyaabaha dhex mara iyada iyo ninka qaba laga ogaado xaafadaha iyo meelaha kale. Haddaba tani sida muuqata waxay ka mid tahay tan muranka badan oo haweeneyda ninka dul taagan waxaad ka dareemi kartaan inay aad ula murmayso. Laakiin waxyaabaha cajiibka ah ee tiknoolajiyada lagu soo kordhin karo ayay saadaalinayaan, waxaana la leeyahay in la heli karo remote lagu aamusin karo haweenka sidaa ula murma saygooda. Haddii isaga oo mashquulsan ama shaqo ka yimid ama waxyaabo kale kula mashquulsan ay la muranto, inuu heli karo remote-ka lagu aamusin karo walow hadda aynan heli karin. Haddana waxaa la saadaalinayaa in tiknoolajiyada ay soo kordhin karto. Waxaana sawirkan ama muuqaalkan sida ka muuqata aad ka arki kartaa ninka iska daminaya, mar aamusinaya, mar kalena aad ka dareemi karto inuu waxyaabo badan oo aad ka fahmi karto shaashada uu sameynayo. Haddaba maxay kula tahay, ma loo baahan yahay in la helo remote noocaas oo kale ah?